kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey waxaan qaybtan ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyey xadhigga xildhibaan maxamed abiib oo maanta lagu xidhay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan in ka badan 10 saacadood oo xildhibaan maxamed abiib uu ku maqan yahay gacanta ciidamo ka amar qaata taliska Muuse Biixi ayaa ilaa iyo hadda jaan iyo cirib meel uu dhigay aan la haynin dhanka kale shacabka gobolka Awdal ayaa si weyn uga falceliyay kulamo ayaana ka socdo magaalada Boorama iyadoo dhanka kalena xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda deegaanada Awdal iyo sidoo kale Salal ay go'aan adag ay soo saareen isla markaana ay sheegeen in ay tallaabo qaadi doonaan waxaan dhinaca kale idin la wadaagi doonaa codadka xildhibaanadaasi oo shaaciyay in aysan wixii hadda ka dambeeya loo sii dowladeyn karin isla markaana shaati dowladeed lagu gumaadaynin siyaasiyiintooda iyo sidoo kale waxgaradkooda iyo aqoon-yahankooda iyo bulshadoodaba dhinaca kale waxaan soo qaadan doonaa hadduu allaydmo xogihii ugu dambeeyey ee magaalada Ceergaabo waxyaabaha ka soo kordhay iyo sidoo kale tallaabooyinka iska soo horjeeda ay qaadeen maamulada SSC iyo Somaliland iyadana waynu eegi doonaa dhanka kale waxaynu dul istaagi doonaa hadduu allaydmo go'aanada ka soo baxaya siyaasiyiinta dawladda federaalka ku matala maamulka Awdal State ama Awdal iyo Salal gobolada Awdal iyo Salal haddaan dhan kale u dhigno beelaha ciise iyo sidoo kale godobiirsi go'aanada ay soo saareen ayaan iyadana soo qaadan doonaa hadduu allaydmo soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reebaa qaybta commentiga bal horta inta ayna ku bilaabin xogihii ugu dambeeyey wax yar aynu wada dhageysano codadka iyo muuqaalada iyo sida ay uga hadleen xildhibaanada golaha wakiilada ka tirsan ee ka soo jeeda gobolada Salal iyo sidoo kale Awdal bal wax yar aynu wada dhageysano kadibna isu soo noqono dooni mayna annaku dal isaaq kaliya leeyahay dooni mayna xilalka dalka oo markii la taco kan ay dabada kaga yaalaan Soomaaliland ku jiri maysaas xildhibaan qaran isagoo diyaaradda ka soo degaya gaari shabeelle lagula hoos sugay sidii ay wargixisay yahayna madaxa loo galiyay sanduuq madow baabuur quflina lagu qaaday anagu waxaanu aragnaa reer qafaash jawaabteeduna waxa u taala dadweynaha ku nool Awdal la foorka iska wada dhici abuu xun noqon doonaa miskiin yar oo xun oo sidaa loo xiray marba meel lagu tuuro ama nin taluu noqon doonaa aniga dahayimaada way qalhalka joogin anugu waxaan miskiinkaas sabaroon waa qaybo kamid ah codadka iyo sida ay uga falceliyeen xildhibaanada waad maqlaysaan qaybo kamid ah waxa ay sheegeen qabiil qafaashay ayaan u aragnaaba leeyahay xariga xildhibaan maxamed abiib xildhibaan maxamed abiib waxa uu kamid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka Somaliland wuxuu in ka badan 9 jeer uu sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo ay soo qorsheeyeen xukuumadda Muuse Biixi oo ay doonayeen in ay ku dilaan waxa sidoo kale uu sheegay in hanjabaado fara badan oo inta badan ba inaga naftirkeena aan aragnay warbaahintana aaban bulshada Soomaaliyeed aan kula soo bulshada Soomaaliyeedna aaban la soo wadaagnay waxa uu horay u sheegay in ay loo hanjabay inaga naftirkeena waan aragnay iyadoo live loogu hanjabayo taliyaha ciidamada booliska ina dabagalamiyoha ayaaba live ugu hanjabayba waxa sidoo kale uu hanjabay saraakiil ciidan oo sheegay in ay dili doonaan waxa soo dhan waxa loo sameeynaya khaladaadka iyo dulmiga iyo dhibaatada aan sameeynayno maxaad u arkaysaa maxaad u sheegaysaa maxaad u iftiiminaysaa maxaad uga hadlaysaa maxaa waxa anaga aan sameeysanayno iyo waxaan boobayno iyo waxaan dhibaataynayno aad uga hadlaysaan oo kaliya ayaa loo dilaya haddana loo xiray xildhibaanada ka soo jeeda labada gobol ee Salal iyo sidoo kale Awdal waxay ku dhawaaqeen inaysan inta ka badan u dul qaadan karin enough bay dhaheen marna uma dul qaadan karnay dhaheen sababtoo waxay dhaheen qabiil inuu qafaasho u dowladeeyo shaati u xidho sida la raba laga yeelo xildhibaan xasaanad leh oo dastuurku uusan qoraynin in la xidho in inta ciidamo soo qabtaan bac madaxa u geliyaan gaari qafilan ku ritaan 10 saacadood in ka badan meel uu ilaa hadda jaaniya cirib dhigay aan war loo haynin waa run ahaantii arrin aan loo dul qaadan karin way
xildhibaanada marka golaha wakiilada ee maamulka Somaliland ka tirsan labadaasi gobol ama beelaha ka soo jeeda aan dhahnay beelaha Godobiirsi iyo Ciisaba waxay isku raacsan yihiin inaan loo sii dulqaadan karin inta xaaladdu ay sidan tahay waxaa sida naftirkeeda qaba isaaq badan baa qaba jaamac shabeel waa nin isaaqa waad maqlayseen isagana haddii wuxuu yidhi xildhibaanka bacda madaxa loo geliyay meesha lagu riday hadduu tol ka dhashay oo waxa weeye bulsho ka soo jeedana dee tallaabay qaadayaan haddii kalena waxa weeye kolba mus ha lagu qabsado kolba meel ha lagu tuurta wiy aniga wuxuu yidhi haddii ay rag yihiin ha igu soo hagaagaan buu yidhi meeshaan joog way garanayaan ha i yimaadaan buu yidhi anuma xildhibaan xun oo kulaha na cunuga xun ee samaroon baan anigu waxa weeye Godobiirsi baan ahay na Godobiirsi xun baan ahay Godobiirsi xun eeg adiga sida loo hadlayo Godobiirsi xun miyaan ahay buu leeyahay waa ragga waxa weeye ka soo shaqeeyay Godobiirsi waa dadka ka soo shaqeeyay gobonimada ummadda Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed midnimada ummadda Soomaaliyeed gumaystaha la soo dagaalamay waa dadkii gobonimo u dagaalanka weligood u taagnaa dadka sida loo bahdilay sida loo galayo waxay taasi markaa micnaheedu ay ka turjumaysaa inay Godobiirsi iyagu isliideen inay Godobiirsi iyagu ay istibdigeen inay Godobiirsi iyagu ay waxa weeye ka shaqeeyeen in noocaas oo kale loo bahdilo oo siyaasiyiintooda xildhibaanadii xasaanada lahaa ee dastuuriga ahaa ee dastuurkii la wada qortay maamulka Somaliland dadkii wada degan ay wada qorteen intii la jabiyay isagoon ogolayn in la xiro bac madaxa loo gelinay bac sida argagixisa xataa sida loo galo bini'aadanimada xataa arrintaasi ma ogolo bac baa intii madaxa loo geliyay bac madaxa intii loo geliyay ayaa waxa weeye gaari qaflan lagu tuurtay 10 saacadood hadda in ka badan meel jaaniya cirib la geeyay stationka markii hore la geeyay waa lagu booqday musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirraa u tagay walow loo diido leeydi kuluguma keenayo kor baa laga tusiyay haddana waa laga saartay maqribkiiba isla maqribadu casarkii markii maqribka soo dhawaada laga saaray meel ilaa iyo hadda jaaniya cirib u dhigay lama hayo ninka la yiraahdo xildhibaan Maxamed Abiib ninka sida loo galay Ilaahay baa inagu dhaariyay waa xildhibaan waa xasaanad buu haysta xil buu hayaa sharcigu ma ogola laakiin sharcigi baa wuxuu noqday wax qabiil la uu ka mamnuucayo qabiil la uu loo adeegsan karo noqday waa halkaas ay maraysa xukuumadda Musabbixi isaaq halkaas uu maraya xukunkiisa halkaas uu horta maraya xildhibaan Maxamed Abiib xaaladiisu waa sida shacabka magaalada Boorama iyo Salal aan fiirin waxaan ka wadaa Awdal iyo Salal aan fiirin marka shacabku caawa kulamay wadaan qaarna go'aanay soo saareen baritana waxaa la rajaynayaa go'aan midaysan oo looga hor imaanayo xukuumaddaas fadhiidka ee qoyska noqotay ee Hargeysa ku soo urursatay sidii looga go'i lahaa ayaa la rajaynayaa inay berita soo saaraan go'aan kale ma laha anigana baaq baan ku tarsanayaa go'aankooda intaa waa xogta iga soo gaaraysa magaalada Boorama baaq baan ku tarsanayaa wada Godobiirsi wi dhageysta nimanka la yiraahdo Ciiso wi dhageysta labadiinaba laba qabiil oo inaga badan oo inaga xoog badan oo inaga cudud badan oo inaga aqoon yahansan oo inaga hanti badan midna ma jiro Soomaalida ka waa hanti badan ciisiya Godobiirsi ma leeyahay Godobiirsi feeri dhulka ay degaan dawladda deegaanka bas markii la yiraahdo xuduudda intaas Somaliland ay ka degaan Somaliland ta kale oo dhan bay leeyihiin adan waliba ka dhul weyn way ka dhul weyn waliba anigu inta aan arkay maalma loo kala soconaya ayadoo taasi ay jirto ayay haddana muuqanin aqoon-yahanka Soomaaliyeed markii la yiraahdo laba meelood loo dhigo ama saddex meelood loo dhigo meel iyaga noqonaya haddana ma muuqdaan oo bulshadoodii kuma midaynayaan oo masiirkooda kagama shaqaynayaan oo mustaqbalkooda kagama shaqaynayaan oo bulshadooda kuma badbaadinayaan oo horumar kuma samaynayaan maxaa ugu wacan war maxaa idinku wacan war maxayna nasaqay war ma xagee inkaartu inaga dhacday waaba ducaabad qabteene xagee inkaartu inaga dhacday waxaan leeyahay war fadhiga ka kaca Somaliland wax la yiraahdo ma jiro reer isaaq la yiraahdo iyo Godobiirsi Ciiso yar baa isku hadhay intaaba hadda isku hadhay wax la yiraahdo Somaliland oo kale ma jiro ma jiraan marka qolo yar yar oo kale taag jirto akishi iyo waxa weeye kuwa yar yar oo kale taag jirto intaana isaaq baa golanka ku haysto ma hadli karaan ba cid la rabay inay hadasheen dhul kale ee xuduud leh ee Somaliland tanba keensatay dhistay samaysay dastuurka qortay bulshada isku keentay ee waxa weeye horumarkan inta yar wax gaarsiisay wax bartay ilaa aqoonyahan kale ma jirine Soomaalida aqoonyahankoodii koobaad waxay ahaayeen Godobiirsi bay ahaayeen
keentay idinkaad haydeen idinkiina waxaa layna geliyey qoorsagaara intii layna geliyey baan waka xildhibaanadiini banaanka lagu waarsanay kurada yareere musabixi u dhalay ay bacda madaxa u gelinayeen oo caawa xildhibaan maxamed abiib inuu dhintay iyo inuu nool yahay aan war loo hayn war fadhiga iskaga kaca fadhiga iskaga kaca waxaad ma tahdina haddaad sidan kusii jirtaan wallahi waxaad ma tahdina oo billahi waxaad ma tahdina war dowladdii federaalka diyaarinaya soomaali weyn baa diyaarinaya cid walbaa diyaarinaya oo ina caawinaysa jabuuti baa diyaarinaya maxaad dowranaysaan marka maa wakti wax lagu kala tegay layna baabiyey layna dhameeyey baad hadhow soo kici doontaan hadhow waad soo kici doontaan ilaynagama yeelayo hadday horan tahay dhankiina qabta dhankiina qabsada oo waxa weeye dantiina u tashada uwaaskiinibaa banaanka dibad wareega waxa weye xabad intii dabada laga geliyey aan adhisabo soo dhaafi karin oo reerkiisii imaan karin xildhibaanadiinina wakaa saasaa loo gelayaa maxaad hadhow sheeganaysaan marka hadhow maxaad sheeganaysaan soomaali maxaad ula dhex tegaysaan gabdhihiinu berito waxay ku hadli karaan ma jiro ma faantami karaan gabadha waxa weye godabiirsi iyo gabadha ciise ee gobolka salal iyo awdal degan ma faantami karto intay sidan tahay waxa weye keyrkeedu ma faantami karto lama hadli karto uma faantami karto hadal waa ka xidhan yahay intay sidan tahay war dhibaatada ka dulqaada reerka maan leenahay dhinaca kaleeto abaabul baa ka socda magaalada ceergaabo tuleedkeeda musabixi ciidamuu keenay odayaashuna go-aan bay ku dhawaaqeen maalin ka hor ood ogsooneydeen oo musabixi uu soo diray dhinaca SSC khaatumana ciidamadii ugu badnaabaa halkaasi la geeyey waxaa la isoo sheegay saacadihii lasoo dhaafay in ciidamadii musabixi ka amar qaadanayay ay soo baxeen oo waxaweye ku soo dhawaadeen jiidale iyo sidoo kaleeto goobo ay ku sugnaayeen ciidamada SSC khaatumo dhanka kaleeto qorilibid dusheeda iyadana maanta waxaa lagu soo bandhigay guutooyin cusub oo ay dhaheen qalaskii SSC bay qaateenba qalas bay dhaheen qalas SSC baa la qaatay bay halkaa kusoo bandhigeen iyadana oo ay leeyihiin waa kuwii buqdharkayn iyo dhulkaa iyo buuhood la qaban lahaa baa la yidhi dhinacan oog iyadana waxaa laga dareemaya dhaqaaq ciidan baa laga dareemaya waxaana aad iyo aad loo hadalhayaa in musabixi uu doonahayo ciidamadii uu shalay ilaa iyo daraad ka soo celiyey dhinaca Ethiopia dhalinyaradii 2 bilood ka yar 2 bilood xataa ma dhamaysanin baan u malaynay uu soo tababar lama dhigi kare macnaha sida qoriga loo rido la soo tusay kuwa inuu doonayo inuu dagaal ku soo qaado musabixina hor uu sheego wuxuu yiri doorashadana waa wadaynaa oo campaign-ka waa wadaynaa dagaalkana waan qaadaynaa warshaha musabixina wuxuu doonayaa intuusan doorashada gelin ka hor inuu dagaalo waaweyn uu qaado oo lagu hoobtay uu qaado doonaya dhalinyaradaasuu rabaa inuu gebi ahaanba dabka kusoo shubo xoogaa hubana Ethiopia way siisay kolley way ka shalay doontaay waa lagula xisaabtami doonaa Ethiopia qorshaha ay ku dhaqaaqday taasa markay musabixi wada shacabka SSC khaatumo iyo ciidamadooda loo baqi mahayo wanaagsanoo awood baan leedihiin hal arin ka shaqeeya midnimada iyo wadajirka ka shaqeeya shacabka waxaan leeyahay firdhiya waxa muun qabanin hebel waa fadhiid maamulku waa fadhiid hebel waa fadhiid hebel waa sidan waad gaabisay waa kan war waxa intaas ka daysaan meeshaad joogteen iyo meeshaad maanta joogtaan waad garanaysaane midnimada ha laga shaqeeyo wadajirka ha laga shaqeeyo meel fiican baad gaadheen annagaa kor joogta ah annagaa aragna tallaabooyinka aad qaateen iyo guulaha aad samayseen oo dhan annagaa aragna guulo waaweyn baad samayseen waxaana leeyahay war hore ha loo socdo meesha hadda la taagan yahay firdhiyagu soo gaadhsiiyey waa meel fiican maamuladii sii dhisnaabaad ka hormarteene ayaad ka hormarteene horay uu sii socdo halkaa ha laga sii wadaan leh insha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo midnimo